بسم الله الرحمن الرحيم macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba walaalayaal sida nooga barateenba waxa maanta mar kale idin soo gudbinaynaa guri iib ah walaalayaal ku soo dhawaada daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waxaa rajeynayaa in aad ka heli doontaan insha allahu tacaala walaalayaal waxaa iib ah guri maasha allah oo dhisan waa guri sar ah meel aad u fiicanna ku yaala walaalayaal wadadan aadka u weyn ayuu saaran yahay soo dhawaada waxaan joognaa xaafadda Tawfiiq laamiga Tawfiiq waa idin muuqdaa waa kaasa bajaajada iyo baabuurta ay marayaan walaalayaal guriga iibka ahna waa guriga hadda ee kaamirada hayso waa gurigan geedka oo hor yaalo ee guriga filada ah ku dhagan dhismo ahaan waa guri dhismihii hore ah laakiin dhismihiisa uu aad u fiican yahay oo weli nool yahay waa guri hore ka deg ah haddii aad doonto aad kira ka qaadan karto haddaba waa la degan yahay albaabkaas ganjeelka ah ayuu leeyahay soo dhawaada walaalayaal dhinaca kale ee wadada waa tanaa xaafadda uu ku yaalana waa xaafad shidan guryahan dabaqa ah iyo guryahan filooyinka ah ee quruxda badan leh ee aad aragtaan ayaa ka soo horjeeda dhinacaas guryo kale dabaqay ah ayaa ku sii yaala waa dhinacii laamiga meesha hadda ay kaamiradu hayso soo dhawaada waxaan guda galayaa xogta gurigan iibka ah oo dhameystiran insha allahu tacaala ka bogasho wacan walaalayaal haddii aan ku bilaabo meesha uu ku yaalo gurigani waxa uu ku yaalaa magaalada muqdishona waxa uga sii yaalaa degmada yaaqshiid oo ka mid ah degmooyinka waaweyn ee magaalada degmada yaaqshiidna waxa uga sii yaalaa xaafadda Tawfiiq si gaar ah waxa uu Tawfiiq uga sii yaalaa eriyada ama meesha suuqa Tawfiiq suuqa markaa wax yar dhaafto ayaa waxa u leexanaysaa dhanka qorax u dhaca markaa ka timaado isgooska hotel Tawfiiqna waxa u leexanaysaa dhinaca gacantaada bidix laamiga uma dheera laamiga waxaa ka xiga oo kali ah 3 boos marka dhinaca kale hore loo sii aadane waxaa ku dhacaysa laamiga kale ee baar ayaan ka imaanaye ee isbartibada ag maraaye wadada dhinaca laamigaas ayay gashaa dhinaca kalena waa laamiga Tawfiiq aad ayuu ugu dhow yahay 3 boos oo kaliya ayaa ka xigto waa dhanka isbartibada laamiga Tawfiiq wuxuu kala baraa xaafadda Tawfiiq dhinacna waa xaafadaha Siliga iyo dhanka Jungle loo aado dhinacna waa xaafadaha dhanka isbartibada iyo baar ayaan soo xigo marka dhinacan oo baar ayaan ama isbartibada xigo ee qorax u dhaca ayuu ku yaalaa xaafad ahaan xaafad uu ku yaala aad ayay u camiran tahay wadooyinkeeda waa wadooyin waaweyn oo maasha Allah 20 iyo 30 iyo meelahaas ah si gaar ah walaalayaal wadada guriga hormarta waxaa la qorsheynayaa interlock in la saaro oo wado interlock ah ay noqoto haddii aad guud ahaan xaafadda dhex martana kulli wadooyinkeedu waa weyn yihiin wadooyinka yimaada jidka 30 ama laamiga 30 iyo labada laami kulli waa wadooyin waaweyn oo highway wada naqan kara marka soo dhawaada meeshaas ayuu ku yaalaa haddii aan ka hadlo xagga cabirka gurigan cabirkiisa waa 20 lagu dhuftay 10 ama finti bardiyeeshe hadba sida u taqaanid walaalayaal balac wuxuu u yahay 10 mitir dhirirkana wuxuu u yahay 20 mitir waa cabir macquul ah markiisa hore wuxuu ahaa 20 lagu dhuftay 20 ama finti bar finti waa la kala gooyay 2 nus ayaa laga dhigay balse waa nus weyn oo xaafadaha qaar ama cabirada qaar boos ka weyn ama u dhigmo marka soo dhawaada ka faa'iideysta haddii aan u gudbo xagga qiimaha iyo lacagta lagu rabo gurigani waxaa lagu rabaa 105,000 oo doolarka Mareykanka ah oo isku dhamaad ah waana macal dalaal iyo heshiis qiimaha waxa ka furan gorgoro
wixii macquul ah waa laydinka dhimayaa insha allahu tacaala. waxaa la yidhaahdaa beec meeshuu ka bilowday kuma dhammaado. soo dhowaada haddii aan nahay shirkadda Dallis Real Estate, waxaan diyaar u nahay inaan idin soo tusinno haddii aad ku qanacdaanne qiimaha laga heshiiyo oo ilaa xad wixii macquul ah laydinka dhimo. haddii aad maqan tihiin dhanka WhatsApp-ka ayaa naga soo wici kartaan, faahfaahin buuxda ayaa laydinka siinayaa. kadibna waa inaad qof wakiil ah soo dirataan. markii guriga laydin soo arko ayaa qiimaha laga heshiinaa insha allahu tacaala. marka soo dhowaada, qiimahana waa macquul. waa guri meel istiraatiiji ah ku yaallo, laamiga booska afaraad keliya ka ah, suuqa Tawfiiq u dheereen, laamiyo waaweyn ay u wada dhow yihiin. marka waa macquul, weliba aad iyo aad ayuu qiimaha macquul u yahay. ha laga faa'iidaysto. haddii aan walaalayaal u gudbo xagga jidadka uu leeyahay, walaalayaal sida muuqaalkaba ka aragtaan waa hal jidle. wadadan weyn ayaa hormarta, waa wado weyn oo ballaaran sida muuqaalkaba ka aragtaan. laamigana waa u dhow yahay, marka laamiga inuu saaran yahay wax weyn maba dhaanto. walaalayaal haddii aan ka hadla dhanka u jeedo ama dhanka ee wadada ka marto, walaalayaal gurigaani wadada waxay ka martaa dhanka waqooyi, waa hal jidle waqooyi ujeed ah. haddii aan walaalayaal u gudbo dhanka iyo sharciga iyo dukumiintiga uu leeyahay gurigan iibka ah, walaalayaal gurigaani wuxuu u leeyahay dukumiinti saxan oo dhammaystiran, kaas oo ah rasiid iyo sabarloog Maxamed Siyaad Barre ah oo original ah. wuxuu leeyahay dukumiintigii asalka ahaa. walaalayaal haddii aan nahay shirkadda Dallis Real Estate, waxaan diyaar u nahay inaan dukumiintiga kuu geyno nootaayadii aad dalbatid si lagaaga hubiyo saxaanshaha dukumiintiga insha allahu tacaala. dhul ama guri iyo dhammaan hantida maguurtada ah, meesha ugu horeysa ee laga fiiriyo waa xagga sharciga iyo warqadaha. shirkadda Dallis waxay mar walba ku dadaashaa oo ay ka shaqeysaa inay idiin soo gudbiso keliya dhulalka iyo guryaha dukumiintiyadooda ay saxan yihiin oo dhammaystiran yihiin. marka soo dhowaada, ka faa'iidaysta. walaalayaal haddii aan ka hadla waxa ka dhisan gurigaani, waxaa ka dhisan 2 qol oo sar ah. walaalayaal haddii aad dhul ama guri beeca ku leedihiin xaafadan iyo dhammaan xaafadaha ee degmooyinka gobolka Banaadir, nala soo xiriir. sidan oo kale ayaan kugu beecgeynaynaa insha allahu tacaala. haddii aad dhul ama guri ugu baahan tihiin xaafadan iyo dhammaan xaafadaha ee degmooyinka gobolka Banaadir, nala soo xiriira. sidoo kale waa idiin helaynaa insha allahu tacaala. ugu dambeyntii walaalayaal waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallis Real Estate. walaalayaal waxaan si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambaleelkana aad furataan idinkoo mahadsan, si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelinayna insha allahu tacaala. sidoo kale Facebook-ga follow inaga soo dhaha. waa mahadsantihiin mar kale. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.